عش ما شئت فإنك ميت جبريل باوي مد النبي عليه الصلاة والسلام وكيري انت دون تبنولو كيد انت وما قرشا كدرس واعمل ما شئت فإنك مجزي به عمل كادون تنك لا يمو ولا قابل مرين دون قيامه سوقو واحبب ما شئت فإنك مفارقه عدة دون تنجعلو هذيك عدة الجعاشة أنا موت كني كلاجين دوني عالم كنا كنا الله هاي مرك الله يقع عوالم تقدم بيسا عالم كنا بيدو حنقاني الدبع مرك الله يقع عوالم تقدم بيسا عالم الدنيا واللحن سنة تضباط السنة عالم البرزخ أيا كبدا عالم كادويدا dadkii zamankii nabi aadan dhintay ilaa joogadeena caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa lagu janneeyay alqabru imma rawdatu min riyad aljanna wa imma hufratu min hufar an-nar bu nabigu yiri qabrigu laba mid buu noqonaya ama berberaha jannada kamid qofka uu noqonaya ama godgodka naarta kamid uu noqonaya sayyidina usman radiyallahu anhu marali markuu quburaha yimaado ilmada ka daadanaysay waxa la yiri usmanow janniya naar marka laga sheekay ma ooydide qabriga maxaa loo yeedaa markaad aragto wuxuu yiri qabrigu waxaan ka maqlay nabiga oole alayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halka ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halka ku cadaabo lagu ku khasaarana khasaarihi weynaaba u gudbayaa buu yiri زرارة ابن أبي أوفى مساجد بكاها إمام تابع بوها صلاة الصباح بجمعي تجيي ركعات دي ورمركو سورة فاتحة ودميي سورة المدثر بكو حجسيي مركو مريو فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ما لنت صورة عن كل فنبا إلى هيد ومالين علس ويان ما لنت عددك قال دانا كما ومفضض با إلى هيد آية دا مركو مريو ننكا إمامك تابعي جليلك أو دعايو نفتي بك بحثي سيدنا عمر مساجد النبي صلى الله عليه وسلم إن يرو شاب واركي أو صلاة الليل تكنايا أو صوتك كرو قادايا مركز عمر استاغو او دغيستي يركيرا مركو فاتحة دي دميي وعقوع جسية والطور وكتاب مسطور في رق منشور دغيستي عمر مركو مري يركيرا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع هل كان مركو مري عمر او صوحو او دعي غريغيسي با لغيي صدن مالمود بو حنونسنا حنونكيسن وحو كيمد لما اوغين سيدنا عبد الرحمن بن عوف أي الله كان عنتي يسوق الصومن مركز قرآن كيبو كلافوري وقبل الفطور ويان قرآن كيبو كلافوري مركز آخري إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما طعام كأهل النار كآيات كور رميسا آيات أمركو تابتي سيدنا عبد الرحمن أوي إلا ما لنت وافرك رواي سيدي بقول سعدامين كي قاجو نبي عليه الصلاة والسلام حلقات كيسي كمدا أيو النبي صلى الله عليه وسلم كو أخري آيات داس وحي جيبا كو سودقي إسلامر جيبا أصحابته وحي قد بيي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كو إلهي النبي الرميو دولك إلهي النبي الرميو لفيني الكينا نارتك لبح صدا با إلهي قاجك لبح صدا لمورن قاجا لغا سوياعي دبات سكاليا لغا سوياعي toban dhibaato maanta faraha la galo la laami kar leeyahay qo anfusakum wa ahlikum nara mufassiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina yeelkiina diinta baraba ilaahay aayada diinta lagaga badbaadaya naarta aayada markay soo degtay waquduha an-nas wal hijara markuu nabigu aayada ku akhriyay in xabashiga nabiga hor fadhiyay majliskiisa lilma ayuu sii daadiyay uu ooyay oo hintiisiibu saysan kari waayay ilaa jibriil ka soo degay alayhi salaam يا محمد كان هوستاده كوه يوايو مركاسود يا جبريل وادون ريح بشا واهل الخير ومؤمنه ايات داسان كو اخريو وادكيسن كري واي غوري مركاسود يا جبريل يا محمد الهي وحيري وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي الا اكثرت ضحكها في الجنه الهي بالع شرفتيدا وينيدا عرشيغا سرا ايا كو دارتي ادومهayga kamida adduunyada dusheeda ma ooyo cabsadayda lama ooyo haddii la helase maalinka la qatay la qawayahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badiyaaba ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhamaysanaya taacada ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatay la qawayahay
ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya. allah inaga dhiga kuwaas. fadadkii hore qulubtoodu markuu iftiinku gale nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya, markay afartaa nuur qalbigooga uu saameeyey, aakhiradii baa u caddaatay. qur-aankay fahmeen, waxyigii bay fahmeen. cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen, abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqanne, sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge. markaasuu wayse soo raaceen, ummu ayman bay u yimaadeen. markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda, ummu ayman way lilmaysay. markaasuu abubakar baa ku yidhi, yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay? ma nebiga baad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane. waxay tidhi, waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay, waan ogahay. waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine, warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi. cajiib. bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso, dhegayso oo faham gabadhay walaasheeda muslimaday. zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen, eeg rag iyo dumar. maantana maxaa lagu xidhan yahay? maxaa lagu xidhan yahay maanta? iimaanku waa maxay? takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar. waxay naf ishu arkaysoo dhan beene, waxa samada ka yimid ee warana rumee. hada huwa aliimaan. qur-aanka iyo xadiiska rumee, warkoogana qaado. wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin, maxaa yeelay waa been, waxba kama soconayaan. labadaasunbaa dhaba. labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay. dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen. marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal? maxaa la iskugu daalinba? qadra daruura adduunyada ka isticmaal, ha dhex degin. guri bilaa musqula ma dhici karto, laakiin musqusha la dhex seexan maayo. markay xaaja ku qabato unbaad gali, waad ka soo bixi. haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya, maxaa la odhanayaa? majnuun. adduunyadu waa caynka. haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa, tii dambe ma aqaana, qorshahayga way ka baxday, tanun baan aqaanaa, hadduu yidhahdo waa majnuun, uu waalan yahay qofkaas. in la dabiibuu u baahan yahay. adduunyada isticmaal lama diidano, laakiin sideed u isticmaalaysaa? sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo, adduunyada u isticmaal. qadra daruura adduunyada ka qaado. qadra daruura. meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan, hayloobin, ha halmaamin. arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay, arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin. arrisqu biqadri lmuqadar baa la yidhi. arsaaqadu waa inta ilaahay kuu qadaray weeyaan, wax ziyaada ma helaysid. arsaaqadu waa inta ilaahay kuu qadaray. caalamkan waa caalam yar marka loo eega caalamka qabriga. caalamka qabriguna marka loo eega caalamka qiyaamaha uu yaraanayaa. caalamka qiyaamaha marka loo eega caalamuljanna wanaarna caalamkaasna uu yaraanaya isna. laakiin maxaa lagu badbaadayaa? waxaa lagu badbaadaya halkana laga qaadanayaa, halkana laga qaadanayaa. waladadka ummuka ya bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuna idaa bakaw fii yowmi mawtika daaxikan masruura. ilaahay nin shaacira wuxuu yidhi, ina aadanow maalintii adduunyada aad dhimanaysay, maalintii adduunyada aad imanaysay waxay hooyadaa ku dhashay adoo ooyaya, dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin. cunuga markuu dhalanayo baqaaq 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 uu qaylaya isagu, laakiin dadku way faraxsan yihiin. faxfad linafsika, naftaada intaad nooshahay ilaaliyo, amarka ilaahay ku ilaaliyo, diinta ilaahay ilaalso oo, iimaanka ilaalso oo, islaamnimada ilaalso oo, amarka ilaahay ha sii dayn, si maalintaad dhimanayso aad adduunyada uga tagta adigoo faraxsan, dadkuna agtaada ay ku ooyaan. dadku waa labada. nina adduunyada wuxuu ka tagaa isagoo faraxsan, ninna waa mustareex, ninna waa mustaraax. nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday, nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya. hebel ma dhintay? haa. qaar baa odhanaya baguu dhintay, kaasi fitnaawi buu ahaay, baguu dhintay. ninna waa nin mustaraaxa, adduunyadii baa looga raaxeeyo, caalamu tacab baa laga qaaday,
caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waad dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso